ciida cabdi gaboobe geesta kale munaasabad lagu guddoonsiinayay deeq raashina dadka danyarta ee ku dhaqan xaafadda Stadowska ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu deeqay hay'adda caalamiga magaceeda loo soo gaabiyay SDWO taasoo xarunteedu ay tahay magaalada London waxa ugu horeyn deeqdaasi ka hadlay wakiilka hay'addaasi magaalada Hargeysa u jooga Xasan Waraab Cadde waxa uu ka warramay hay'addan iyo kaalinta ay kaga jirto u gargaaridda dadka danyarta ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland waxaana uu mahadnaq soo jeediyay gudoomiyaha hay'addaasi Guuleed Cabdi Sheekhash oo tilmaamay in uu kaalin mulo oo wax ku ool ka qaato sidii dadka danyarta ee ku dhaqan Soomaaliland wax loo soo gaarsiin lahaa deeqdan la siiyay dadkaasi danyarta ayaa waxa ay qaybinteeda iska kaashaday hay'adda SDWO iyo waliba ururkayda waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi Khalid Jilaani iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka xuquuqul insaanka iyo sidoo kale Maxamed Xuseen oo dhamaantood kor dheeraaday muhiimadda uu raashinkan u leeyahay kulanay soo